السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير شرفت الهلال بركة ميل والباجوكتان. رمضان مبارك، رمضان كريم. وحرم أنت إن إذن لو ذاقو باق فرصة وين كجرتو إيو وحيابها قار أو بيش رمضان أجر كفره بدن وكجر، لكن ضدك قار أي حوغا قلدات ير أي كدران تنكواد وحواي باقا ربينا كجيدي ميشان oo fursada faraha badan ku jirto waxa waaye in dalkeena ay ka jirto abaar aad u baahan. abaar darana ka jirta. mar aan dad la hadlay waxaan weydiiyey abaarta ka jirta hadda dalka ma lala barbar dhigi karaa tii cagabararka ma gaarsiisan tahay? jawaabtu waxay ahayd way ku dhowdahay. haddaysan lamid ahayn way ku dhowdahay. marka abaar aad u daranaa jirto. waxaan baaqaa marka u sheegaa inuu walaalaheena oo aadka ay abaartu u saameysay inaan wax u qabano. fursadu ku jirtana waxay tahay bil ramadaana ku jirnaa, sadaqana waa la baxaysaa. waa adigoo sadaqa la baxday walaalkaagana afurisay, marka ajir fara badana meeshaas ku jiro. waxaan rabaa baaqi inaan ku daro in xitaa adinkoo magaalada degan oo dadka xoolo ay haysan oo xoola oo manaha dhaqan dad xoolo dhaqato ahayn, dariskiina ogaada. waxaa laga yaabaa inuu gurigan qofka degan raashin fara badan inuu kariyo uu daadiyo, laakiin dariskiisa iyo afurka ku adag yahay, suxurtana ku adag yahay. taasna kuleeba aakhir waa la isweydiinaa. dariskaaga inaad ka warqabtid waa waxyaabaha aadka u muhiimsan, ajirka faraha badanna laga helo. nabiga sal ly slam wuxuu dhahay sidii jibriil ugula dardaarmayay dariska waxa u malay inay dhexlayaanba, oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam. marka baaqiga wuxuu yahay dadka aad taqaanid ka warqab xaaladooda, dariskaaga ka warqab. dadka abaarta ay saameysa meelaha fogfog deganna biyo la-aantahaas, raashin la-aantahaas, xoolaha ka dhammaanaya, iyagana qaarkood baaba-aayo inaa wax loo qabto. tan kale aan raba inaa baraarujiyo waxa waaye, maadaama hadda aan ku jirno bishii shahrul qur'aan ahayd, bishii qur-aanka uu soo degay, habeenkii uu soo degay, intaas bay bishaan ay koobsatay. waxaan arkaynaa in maasha allah tabaaraka allah iyo muslimiinta aad ugu dadaalaan in qur-aanka akhriyaan. qur-aanka akhrintiisa ajir fara badanaa ku jiro. waxaa ka mid a waxaa khaaska loogu yeelo qur-aanka akhrintiisa waxaa ka mid ah in qofka ajir uu ku helaynin keliya inuu kelmad akhriye ama kul jumlad akhriye ama bagow ku akhriye. qofku wuxuu ajir ku helaa inuu akhriyo xarafka ama kale xaraf kasta uu akhriye.